bulshada ku dhaqan koonfur galbeed oo maanta runtii wax laga xumaado shaqaaqada ka dhacday ilaa iyo saaka oo ku dhammaadeen caruur fara badan hooyo oo suuq u socotay aabba masaajid ka soo baxay guryo ku gubteen runtii maanta waa maalin murugo badan aniga waxaan ka soo jeedaa Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado waxaan rabaa dadkaas shalay waxaa tagay magaalada Baydhabo wafti anagoo hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka waxaa la soo bixiyay kumakeeg wax lagama hadlin ii sheegadeen jawaab kama soo dhiibin musharaxiinta meesha joogan runtii madaxweynihii koonfur galbeed iyo gudoomiyihii waxaas la gartay gogashi in la fidiyo bishii 5 Janaayo inta gogashi la gaarin ayaa waxaa dhacday dhibaatadan runtii ma fiirsan karno manaan u dul qaadan karno waxaan ka codsanayaa dawladda federaalka madaxweynaha ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha in ay arintan ay farageliyaan oo si degdeg ah xabadan loo joojiyo xabadan hadaan saacada hadda way socotaa hadaan hadda la joojin runtii xabadii la iskaga dhicin lahaa cadawga oo soo hareeray soo galay aaga koonfur galbeed cadawga xabadii la iskaga dhicin lahaa maanta waxaa la iskaga dhicinayaa bulshadii maanta waxaa lagu dagaalamaya bulshadii maanta waxaa lagu baabi'inayaa haweenkii caruurtii iyo wixii oo wax qaban lahaa maanta ayaa lagu baabi'inayaa waxaan baaqaas u dirayaa madaxweynaha waa inuu si degdeg ah u joojiyaa xabadaas waa inuu amar dul dhigaa militariga booliska waa inay ka hortagaan ayaga ku jiraan waa inay ka baxaan ayagana waa tii siyaasadda inay ku milmin loogu talagalay waxaa cod dheer iyo cod gaaban aan ugu sheegaynaa yaa la dhammaynin bulshada ku dhaqan koonfur galbeed xabad ma rabto inay qalin qaadatay rabtaa koonfur galbeed xabad ma rabto inay nabad ku seexatay rabtaa xabad ma rabto waxay rabtaa inay beeraheeda falato qofkii xabad uga horseedo waa la iska qabanayaa in la iska dhiciyaa waajibaad ah madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen waxaan ugu baaqayaa inuu ka joojiyo bulshada rayidka ah dhibaatada uu maanta ku hayo waa inuu ka joojiyaa madaxweynaha federaalka waxaan ka codsanaynaa inuu ka hortago